أنا باشا هذا ما صنتهاي ورمتها وهي قلبه وعاكسه الدولي مدهدي نمان كان مقع شباب طلبعي أي كسو الدولي دبعت بدن كجيستين ودل وداوع له وبركعين له الدمار هدي dadkii maartay dhibaatada lagu hayo hada waxay noqotay marka in la iska kaashado la iska bixiyo oo dawladda federaalka ah Soomaaliya dawlad goboleedka Galmudug iyo madaxdiisa hay-adihiisa kale arrimaha nabadgelyada gaar ahaan ciidamada iyo hadday noqdeen booliis yihiin ama military yihiin ama ay daraawiish ciidanka la yiraahdo ay yihiin dhamaan in hadee cadowgaas dhibaatada wada in laga wada qayb qaato si deegaankan in laga sifeeyo oo maaragtay si dadku u helo deganaan iyo nabad iyo xasilooni u helo ilaa hadda maxaa idin suura galay jeneraale intaad ku sugantihiin deegaanadaas والحمد لله runtii wax badan baa suurta galay oo waxa suurta galay dadku inay la wacyi geliyay dadku inay dareemeen inay maaragtay cadawgooda u midoobaan dadku inay dareemeen in deegaamadoodii dhibaato ka wadaan nimankaani isla markaasna inay iska xoreeyaan ayay dadku go'aansadeen marka runtii wax badan baan u qabsoomay oo wixii shalay iyo meelaha shalay ay joogeen maanta ma joogaan maanta meesha ay joogaan haddii ilaahay idmo ma sii joogi doonaan ayagu waxay isleeyihiin xilliga dadku ku jiro oo doorashada dalka ku jiro aad kaga faa'iidaysataan laakiin insha allahu tacaala waxaan malaynayaa dadku inay muxuu ahaa dagaalka iskaga difaaci doonaan dabcan doorashadoodana inay qabsan doonaan jeneraale waxaa ku sugan tahay magaalada Bacaadweyn ee gobolka Mudug maxaad kala kulanteen magaaladaas ayaan waxaan kala kulannay waxa weeye degmadaas burbur waxaa lagala kulmay burburkii ay u geysteen shabaab ayaa ka muuqdo ah magaalo dadkeedii ay ka qaxiyeen maaragtay wixii laga yacni dhinac walba hade waa meel iska banaan maahan hadda magaalo laguma sheegi kara hadda waxay magaalo noqonaysaa insha allah markii nimankan sharwadayaasha waddanka laga saaro dadku markaas bay dib ugu soo laaban doonaan haddii aan la yiraahdo dad badan waxay isweydiiyeen senator Cabdi Qaybdiid oo siyaasi ah inuu camaaro ku sugan yahay halkii uu doorashada uga diyaar garoobi lahay oo ololaha isugu diyaari lahay arrintaasi maxaa ka leedahay adeerade meel yaa la xukumayaa haddii dalkii oo dhan la qaato oo dadkii maatada ahaa muxuu ahaa waxbarashadoodii ay waxbaranayn oo culamadii iyo diintii ay meelahay ku akrinayeen aysan ka badbaxayn oo qof alla qofka arkay ay dilahayaan hadda anagu dadkan madax u nahay dhibaato kastoo dadka ku timaadana inaan la qaybsanna hadde waa waajib weeye wadani ah inaan wax alla wixii aan ka qaban karno inaan ka qabano dadka wacyi gelino u sheegno dadka cadowgooda inay maaragtay iska difaacaan deegaankoodana ka xoraystaan si ay u helaan xasilooni iyo nabad waarta senator Cabdi Qaybdiid ugu dambeyn maxaa fariin u diraysaa waxaan dirayaa dadka Soomaaliyeed oo dhan guud ahaan muxuu ahaa gaar ahaan reer Galmudug nimankan maaragtay fidna wadayaasha in ay iska dhiigooda
iyo hantidoodaba inay ku bixiyaan inay iska difaacaan si caruurtooda iyo maatadoodu ay awal barakiciyeen ay deegaamadii dib ugu soo laabtaan haddii alla yidhaahdo. arrintaasna iskaashi waa hubaa dawladda dhexe, dowlad goboleedka iyo dadka soomaaliyeed oo dhan intaba diyaar bay u yihiin inay qayb ka qaataan. waa mahadsantihiin.